kulanti wacan saaxiib yeel ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida waa 25 bisha 11 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamid ah farmaajo oo magacaabay ergey siyaasadeed nooc cusub Sheekh Umul oo go'aan geesinimo leh ka qaatay hadalkii Sheekh Soomo kana hadlay sida loo joojiyay muxaadarada iyo wixii dhexmaray isaga iyo madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha Puntland oo Imaaraadka ugu baxay safar la xiriira qandaraaska la isku hayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo su'aalo cajiib ah ka keenay safarkii Axmed Madoobe ugu ambabaxay Nairobi iyo cadaadiska dawladda federaalka ay ku hayso maamulka Jubbaland iyo qeybaha dambe oo idinkugu soo gudbin doono sir la helay oo lagu ogaaday in xilka laga qaadayo wasiir Cawad iyo waliba cid bedelaysa intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana ku soo dhawaada iyagiyo fidsan aynu ku bilaawna Sheekh Maxamed Cabdi Umul oo maalmahan ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay sababta keentay in la joojiyo muxaadaro la qorsheeyay inuu ku qabto magaalada Muqdisho Sheekh Umul ayaa sheegay in isaga uu dalbaday in gebi ahaanba muxaadarada la joojiyo isaga oo ka soo horjeeda in muxaadarada darteed uu dhiig u daato kadib hanjabaad ka timid culimada ahlu sunna wal jameeca isagoo hadal ka jeedinaya kulan lagu soo dhaweynayay oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayuu sheegay in madaxda ugu sareysa dalka ay ka go'need qabashada muxaadarada balse isaga uu gartay inaan marnaba la qaban haddii aan ummadda Soomaaliyeed dhiigooda daadinayo marka ay dhibaatada gaarto uma soo gurmadeen xoolo uma soo ururiyeen sida daraadeed madaxda dawladda oo diidan oo ku adkeysanaysa aniga joojiye ayuu yiri Sheekh Umul waxa uu sidoo kale hadalkiisa uu inta ku daray inay nasiib daro tahay dadka leh fadwo uu sameeyay ayaa dad lagu laayay waxaana uu sheegay in haddii ay taasi jirto uusan u soo gurman lahayn shacabka Soomaaliyeed arintu ma aha wadaadada kala qabta ee waa wadaad ayaa qaldamay waana in la qabtaa ninka qaldan aniga raali baan ahay ma ihinin u dudsan muxaadaro ayaa lagu diiday mana qabo magaalada Muqdisho ayaa lagu takooray mana qabo raali gelin inaad isiisaan markaan u jawaabayna waxaan iri Muqdisho waa magaaladayda marar kalena waan soo noqon doonaa ayuu yiri Sheekh Maxamed Umul dadaydu ma ahayn inaan muxaadaro dhigo markaan meesha iimaanay laakiin bulshada qaar kamid ah culimada iga codsaday dhowr bal inala joog khudbada jumcadana noo jeedi wuxuu ahaay muxaadaraadna magaalada ka jeedi waan baaqday anigoo magaalada Nairobi hawlo badan kule baan saa u baaqday haday mushkila abuurantayna go'aan waxaan qaatay intii hatta iska dhaaf dhiig ku daatay ruux Soomaaliya intii lagu xidhi lahaa ama xabsi ku gali lahaa sababtay ayadana la kansal ayadoo waliba dawladdu ku madax adag tahay ana diiday oo ku yiri maya ma dhacayso hatta madaxweynaha waxaan ku qanciyay qiso waxaan u keenay Uthman ibn Affan khaliifatu rasuulillah sallallahu alayhi wasallam ayaa waxa loogu yimid duulaan niman kacdoon duulaan ugu yimid xafiiskiisa isku wareejiyeen inay dilaan bay rabeen saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam la joogay baa damcay inay difaacaan oo dagaalamaan oo khaliifka muslimiinta difaacaan Uthman wuxuu ku yiri ruux muslima intii sababteeda dhiig ugu daadan lahaa u baneeya farax ka qaada dagaalamina way ka baxeen saxaabadii nimankii way u soo galeen Uthman asagoo quraan akhrinayay ku dileen marka خير الله سي شيخ إلى وقت جالس إلى الدواء لا سعودي وأنا قانا وأنا أقول ما تعلن يا وأنا جيساس إيو سما فلك أو مدة سوامالات مرة والبا لدول تاجين هاي إيو سدا أقول بحيي حقوق النبديسة إيو يعني تاريخ ذا أقول كي حركات كي إسلامية هاي سراعي waddanka Soomaaliya loo soo baray maraba inaan hadallo badan halkan ka jeediyo sheekha khayr Allah siiyo insha Allah taala sidaan soo dhaweynay isla sheekha marka shaqaaqada dhacday kadib isla sheekha ayaa wuxuu naga codsaday asagoo badbaadinaya dhiigga shacabka Soomaaliyeed asagoo ka hortagaya foodada dambe dalka ka dhacdo ayaa wuxuu naga codsaday sheekha inaan baajino وانا كأقبلني الشيخ آدو مهسيه وزارة مروة البوحي سود وين يساع علماء الصوماليات قيبوه ذا كل دوان وحن عدينا علماء الصوماليات قيبوه ذا كل دوان إن أن أدحينه ووزارة فرقة قونية
aysan taageersaneen sheekha siduu asagaba hore noogu sheegay wuxuu dalkan u yimid oo qayb weyn ka qaatay badbaadinta dalka 2009 markaasuu shirka dib u heshiisiinta magaaladu ka socday dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ergi madaxweyne oo gaar ah u magacaabay geeska Afrika badda cas iyo gacanka cadmeed wareegta uu soo saaray madaxweynaha oo ku taariikhaysan 17 November ayaa xilkan loogu magacaabay Balal Maxamed Cusmaan oo horey uga mid ahaa la taliyaasha madaxweynaha warqadda madaxweynaha oo Villa Soomaaliya aysan si rasmi ah u faahfaahin balse ay heshay warbaahinta laguma sheegin shaqada ergigan oo ah xil Soomaaliya ku cusub oo aan horey u jirin si kastaba haatee xildhibaanada ku dhow madaxweynaha ayaa warbaahinta u sheegay in ergigan uu madaxweynaha u qaabilsanaan doono xiriirka saddex geesoodka ee Soomaaliya, Itoobiya, Eritrea, wada hadallada Kenya iyo xiriirka dalalka badda cas sida Djibouti iyo Yemen. dad madaxweynaha ku dhow oo la hadlay warbaahinta balse codsaday inaan la magacaabin ayaa sheegay in madaxweynaha uu tallaabadan qaaday iyadoo ay qayb ka tahay guddi ay sidoo kale dalalka gobolka xubno soo magacaabi doonaan madaxweynaha ma doonayo inuu mar walba safro dalalka Kenya, Itoobiya, Eritrea ama Sacuudiga oo arrimo badan ay kaga xiran yihiin Soomaaliya sidaa daraadeed waxa uu doonayaa ergey mar walba tegi kara dalalkaasi isaga kaliyana soo wargeliya ayuu yiri qof la hadlay warbaahinta geesa kalena warar dheeraad ayaa waxaa laga helayaa safar uu shalay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ugu ambabaxay dalka Imaaraadka Carabta isagoo marka hore ku hormaray magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya safarka madaxweynaha oo ahaa mid aan horey loo qorsheyn isla markaana aysan sharaxaad ka bixin madaxtooyada Puntland ayaa waxa ujeedkiisu yahay sidii uu mas'uuliyiinta Imaaraadka Carabta ugu qancin lahaa inay sii wadaan qandaraaska shirkadda BDG oo qaabilsan adeega iyo saadka ciidanka badda ee Puntland ee BMBF khilaaf ba'an oo soo kala dhexgalay saamileyda ku mideysnaa shirkadda BDG ayaa keenay inay istaagto taakulaynta Imaaraadka Carabta siin jirtay ciidamada MBBF oo socotay muddo ku dhow 10 sano 6 bilood ee la soo dhaafay ayaa waxa istaagay oo qalqal ku yimaaday howlihii shirkadda waxaana taasi ay keentay inay Imaaraadka Carabta joojiyeen taakulaynta ay siin jireen shirkadda BDG khilaafka ka taagan qandaraaska ayaa cirka isku sii shareeray markii ciidamo ka tirsan daraawiishta Puntland oo garab ka helaya Maleeshiya beeleed hubeysan ay gudaha u soo galeen magaalada Boosaaso iyagoo ka godoosan khilaafka u dhaxeeya saamileyda BDG qaar ka mid ah isimada dhaqanka iyo madaxweyne Dani ayaa la xaqiijiyay inay soo afjareen khilaafkii u dhaxeeyay saamileyda shirkadda BDG isla markaana uu madaxweynuhu ballan qaaday inuu mas'uuliyiinta Imaaraadka ku qancin doono inay sii wadaan qandaraaska BDG ee taakulaynta ciidamada BMBF heshiiskan ayaa keenay safarka madaxweyne Dani oo ku aaday Imaaraadka Carabta inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn inay Imaaraadka aqbali doonaan codsigiisa in dib loo soo celiyo taakulayntii la siin jiray shirkadda BDG dhinaca kalena siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka hadlay safarkii ugu horeeyay oo Axmed Madoobe ugu ambabaxay Kismaayo tan iyo markii dib loogu doortay kuna aaday Nairobi ayaa madaxweyne Farmaajo weydiiyay su'aal ku saabsan safarkaasi haddii uusan Axmed Madoobe ka celin karin inuu si toos ah Nairobi ugu duulo muxuu madaxweyne Farmaajo u ciqaabiyaa shacabka Jubbaland ayuu isweydiiyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa xusay in dadka u safraya deegaanada Jubbaland ay dhibaato xoog leh ku qabaan soo marisa magaalada Muqdisho isagoo xusay in waqti iyo qarash badan uga baxo diyaaradda Doble tagtay tikidkeedu uu yahay $80 duulimaadkeeduna uu 20 daqiiqo yahay haatan waa 255 saac oo duulimaada sababtan waa inay Muqdisho soo marto su'aalo iyo baaritaano lagu sameeyay ayuu sii raaciyay Cabdiraxmaan ayaa tallaabadan ku tilmaamay inay tahay dulmi cad loona baahan yahay inay dadka Soomaaliyeed ka dhiidhiyaan waa dulmi cad waana inaan ka dhiidhino dhammaanteen u doodno shacabka Jubbaland hadalka ka soo baxay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa imaanaya iyadoo xilli diyaarad gaar ah oo ay wafdi u hogaaminayay madaxweynaha Jubbaland shalay ka qaaday magaalada Kismaayo iyadoo toos ugu degtay magaalada Nairobi taasoo mar kale jabinaysa amarkii dowladda Soomaaliya ee ahaa in diyaaradaha aada iyo kuwa ka baxay soo maraan magaalada Muqdisho safarka madaxweynaha Jubbaland ee Nairobi ayaa la xiriira arrimo siyaasadeed iyo khilaafka ka jira Jubbaland gaar ahaan arrinta ka taagan gobolka Gedo Axmed Madoobe ayaa la filayaa inuu Nairobi kula kulmo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Gedo oo ku jiro gudoomiyaha gobolkaasi sidoo kale waxaa la filayaa inuu kula kulmo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya
ugu dambeyntiina ila xog ogaal ayaa u sheegay warbaahinta in ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu doonayo xilka qaadis uu ku sameeyo wasiirka arrimaha dibadda wasiir Axmed Ciise Cawad ayaa inta badan xafiiska ra'iisul wasaare Khayre ku shaqeyn ama ka qayb galin shirka golaha wasiirada Cawad ayaa aad ugu dhow madaxweyne Farmaajo oo safar walba waxa uu raacaa inta badan sida la arko sida qorshaha uu yahay waxa maalmaha soo socda xilka wasaaradda arrimaha dibadda loo magacaabaya safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya ee xilligan Danjire Cali Saciid Fiqi waxa taasi ay sabab ka dhigtay in dhowr arin uu sameeyay madaxweynaha uu shaqo ahaan lahaa wasiir Cawad dhinaca magacaabista wakiilka qaarka ee dhanka dibadda guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkan waa naga inta fadlan haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo subscribe saar sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay ku soo gaaraan wararkaynu halkan ay soo gelino waana mahadsan